madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis laftagreen ayaa magaalada baydhabo kula kulmay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswan sida warkan ku faahfaahinayo Salmaan Raage xarunta madaxtooyada ku-meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo maanta waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis laftagreen iyo wafdi hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan kulankaas waxaa diiradda lagu saaray xaaladaha taagan marka la eego arrimaha bini'aadanimada iyo arrimaha amniga waxaana James Iswan iyo Laftagreen ay si qoto dheer uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa gurmadka abaaraha kulankaas markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis laftagreen waxaana uu sheegay in hadda dhinacyadu ay isla soo hadal qaadeen arrimaha gurmadka bini'aadanimada waxaana uu sheegay in Laftagreen ay ka dalbatay qaramada midoobay in la xoojiyo arrimaha gurmadka abaaraha wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo SRSG-ga Mr. James Iswan iyo safiiro ambassadors safiiro badan oo beesha caalamka ka socda oo safiiradan hadda jooga ay ka mid yihiin safiirka Mareykanka, Sweden, Jarmal, ATMIS, IGAD, Ethiopia iyo safiirada European Union inta wafdigaas ballaaran oo loo yimid runtii aadaan ugu faraxsanahay inay xilligan ay soo booqdaan waxaan ka wada hadalnay arrimaha samafalka iyo xaaladda adag ee dalku ku jiro sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa arrinta security-ga oo muddo dheer soo noqotay iyo sidii dadka ay amni guud u heli lahaayeen sidaasoo kale waxaan aad uga wada hadalnay maamul daadejinta nidaamka federalismka iyo sidii maamulka loo daadejin lahaa adeegyadana loo daadejin lahaa degmooyinkana loogu samayn lahaa golihii deegaanka degmooyinka hadda aan suubinay iyo inta kalena loo dhammaystiri lahaa sidaasoo kale loona heli lahaa in adeegyada bulshada la daadejiyo dadka ay doorasho helaan shacabka ay wax doortaan runtii si fiican ay noogu soo dhammaatay beesha caalamkana waxay naga ballan qaadeen taageero inay nala garab istaagaan oo samafalka iyo abaaraha sidii dadka loogu gurman lahaa iyo sidaasoo kale sidii amniga gacan buuxdana looga siin lahaa waxyaalaha aan u baahannahay oo dhan nagala dhammaystiri lahaa adeegyada bulshadana loo gaarsiin lahaa arrin guul ah ay ahayd si fiican oo qurux badan ay noogu soo dhammaatay waxaan kaga mahad celinaynaa wafdigan ballaaran imaashihiisa iyo shaqada fiican oo nala qabtay aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada koonfur galbeed ku soo dhawaada iyo baydhabo Salmaan Xaaji Axmed Raage Soomaali Cable Muqdisho